militariga Israel ayaa muujado cusub oo weerar ku qaaday dalka Iran iyagoo duqeymo ka geystay goobta ugu weyn lagu kobciyo uraniumka ee lagu magacaabo Natanzi iyo garoonka diyaaradaha Tabriz. weerarada xalay dhacay ayaa waxaa lagu bartilmaameeyay madaxda sarsare oo Iran ka tirsan oo lagu dilay oo ka mid yahay madaxa ilaalada kacaanka Iran iyo waliba abaandulaha ciidamada dalkaasi Iran. ugu yaraan 6 magaalo oo Iran ah ayaa lagu beegsaday oo waxa ku jiraan goob dad shacab ay ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Tehran. Iran ayaa dhankeeda gantay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, taasi oo Israel ay sheegtay in markii dambe ay soo rideen. iyadoo ay jirto walaac caalami ah oo sii kordhaya ayaa Israel waxay ku andacootay in ay nafteeda badbaadinayso oo difaac ay ku jirto. haddii aanayno jawaabaha laga bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu uga digay Iran in Israel ay sii wadi doonto weerarada naxariis darrada ay halkaasi ku hayso. waxa uu ku booriyay Tehran in ay heshiis ka gasho barnaamijka nuclear-ka si looga hortago isku dhac ballaaran. waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu siiyay Israel tiro gantaalo ah iyo qalab militari oo casri ah oo wanaagsan isla markaana halis badan. horaantii waxa uu sheegay in Washington ay la ogeysiiyay ka hor inta weerarkaasi Israel uusan dhicin, balse waxa uu sheegay in Israel oo kaliya ay ahayd weerarkaasi oo Mareykanka uusan ka qayb qaadan. ururka Xisbullah ee ka dagaalama dalka Lubnaan ayaa cambaaray weerarka lagu qaaday Iran. waxay ka digeen in weerarada Iran lagu qaaday ay tahay kuwo halis ku ah in colaad ay ka horiyaan gobolka Bariga Dhexe. qaramada midoobay ayaa waxa ay waxda u qaabilsan nuclear-ka ninka hogaamiya oo lagu magacaabo Raval Cross ayaa dhankiisa sheegay in xarumaha nuclear-ka ee la weeraray ay halis ka dhalan karto isagoo ku baaqay in la isxakameeyo. dhanka kale suuqyada dhaqaalaha Iran ayaa ka falceliyay isla markaana aad hoos ugu dhacay kadib weerarka Israel ku qaaday dalka Iran. qiimaha shidaalka ayaa aad sare ugu kacay sabab la xiriira walwalka laga qabo in carqaladeyn ay ku timaado wax soo saarka shidaalka Bariga Dhexe haddii dagaalku uu sii socdo. qiimaha saamiyada suuqyada Aasiya ayaa saameyn ay ku yeelatay sidoo kale duqeymaha Iran lagu qaaday. shirkadaha sameeya maalgelinta ayaa inta badan waxaysan jeclayn in ay maalgelin ku sameeyaan goobaha ay ka jirto hubanti la'aanta. qaramada midoobay ayaa sheegtay in hawada ay ka maqan yihiin isgaarsiinta Gaza, taasi oo curyaamisay howlaha bini'aadanimada ee halkaasi ay ka wado. ku-xigeenka afhayeenka qaramada midoobay Farxaan Xaq ayaa sheegay in burburka guud ee internetka iyo weliba adeegyada xogta lagu ogaado ay markaasi majaxaabinayaan howlaha iskudubaridka gargaarka iyo weliba xogta muhiimka ah ee loo baahan yahay in laga helo dadka rayidka. maamulka Falastiiniyiinta ayaa ku eedeeyay Israel in si loo kaca ay u bartilmaameedsadeen khadka fiber optiga oo ah khad loo adeegsado internetka. warkii dunidana waa naga